يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب بشراك مغفرة بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Uko Media oo aad uga barateen barnaamijyo xiisaysan. maantana waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa warbixin kooban oo ka hadlaysa diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Allah ayaa mahad iska leh oo adoomihiisa ku nimcaystay nimcooyin waaweyn kana difaacay dhagarta shaydaanka waqti uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala soonka ka yeelay awliyadiisa mid difaac u ah oo Allah u furay albaabada jannada. soo dhawow bisha barakeysanay ee Ramadaan, bisha oo la soo dejiyay quraankii sharafta badnaa. walaalahayga Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa soo jecelayo bishii Ramadaan way timid. waa xilligii cibaadada, waa xilligii darajooyinka sare la gaari lahaa, rabbiga dhulalka iyo cirarka darajooyinka sare loo gudbin lahaa. nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ka yiri soo gelitaanka bisha barakeysan ee Ramadaan. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خير يغشيكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أخرجه الطبراني في الترغيب والترهيب. waxaa idin yimid bishii barakeysaneyd ee Ramadaan, waa bil barako, waxaa ku sugan khayr uu Ilaahay idinka daboolay. waa bishii la soo dejinayay raxmad, waa bishii la iska masaxayay gafafka, waa mid la ajiibaya ducada. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu fiirinayaa tartankiina aad u tartamaysaan khayrka, malaa'igtana waa idinku faanaya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala nafafkiina wuxuu tusayaa khayr. qofka hoogay waa qofka laga xarantimeeyay raxmadda Allah. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق. diyaar garowgii nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa bisha Ramadaan markay timaado mid u diyaar garowga mana u diyaarsan jireen cunto, cabitaan iyo isqurxin, laakiin wuxuu u diyaarsan jiray taaco, cibaado, dadaal iyo saqinimo. goortaas Ilaahay la jirkiisa ayuu ahaan jiray, taaco ayuuna ku ahaan jiray, dadka micigoodana uu ahaan jiray asigoo ah rasuulkii baahnaa sida asxaabtiisa, dariskiisa iyo dadkiisii uu jeclaa. ilaa inta Abdullah ibn Abbas ku tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa midka dadka ugu wax bixinta badan bisha barakeysan ee Ramadaan, wuxuuna ahaa mid wax badan bixin jiray. mar walba Jibriil wuu la kulmi jiray, quraanka ayay wada akhrin jireen. nabigu sallallahu alayhi wasallam xilligii uu Jibriil la kulmayo waxa uu ahaa mid dadaal badan sida dabeel la soo diray oo kale. xadiis kale oo macnaha tusinaya Imaam Bukhari iyo Muslim ayay soo saareen. sidaasi oo kale ayay ahaayeen asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kuwii wanaagsan ee ka dambeeyay. sidaasi darteed xilliga Ramadaanka bilaabanaya agtooda wuxuu ahaaday kuwa neefsanaya ruux janaad oo kale. qulubtoodana waxay ku duulaysay samaawaadka sarsare, madaxoodana waxay ahaayeen madaxda ugu sareysa adduunka, kana sareysa madaxda daalimiinta. kani waa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ramadaanka ayuu diyaar garoobi jiray, masaajidda ayuu amri jiray. wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee jamciya salaada taraawiixda isagoo ku nuurinaya akhrinta quraanka kariimka qowlka Eebe. Abi Ishaaq al-Hamadani wuxuu yiri waxaa soo baxay Ali habeenkii ugu horeeyay ee Ramadaan iyadoo masaajidka lagu akhrinayo kitaabka Allah. wuxuuna yiri Allah ku nuuriyo ina qadaabo qabrigaaga si aad quraanka kariimka ugu nuurisay masaajidda Allah oo kale.
للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب. dad ka mid ah dadkii saafta waxaa la joogay gabar markaasi waxay aragtay iyadoo u diyaar garoobayaan bisha barakaysan ee Ramadaan uguna diyaar garoobayaan cunto iyo wixii la mid ah. markaas ayaa waxay weydiisay sababta ay u diyaar garoobayaan. waxay ku yiraahdeen bisha barakaysan ee Ramadaan ayaan u diyaar garoobaynaa. markaas ayaa waxay ku tiri idinkama waxaad soomaysaan Ramadaanka oo kaliya. waxay ku tiri waxaan la joogay dad mar walba ay sooman yihiin oo soon qabaan ee dadkaas i celiya aniga. diyaar garowga samada iyo soo gelitaanka Ramadaan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أبي هريرة الله كرار نقضي وحا لغوري إنه النبي صلى الله عليه وسلم يري هبينك وغوري رمضان شياطين طوال حرا iyo jinka kuwooda madax adag albaabada naarta waa la xiraa lama furo albaabada naarta hal albaab ka mid ah xitaa lama furo albaabada jannada waa la furaa midna lagama xiro qof dhawaaqaya ayaa dhawaaqaya habeen walba oo Ramadaan ah wuxuuna leeyahay warkiina khayrka jeclow khayrka u imaada warkiina sharta jeclow sharta iskaga yareeya Allah wuxuu leeyahay xuraynta naarta habeen walba oo Ramadaan ah soo ma arkaysid inuu Allah ku furay albaabada jannada kaana xiray kuwa naarta. waa maxay shuruudaha uu soonku ku ansaxayo? soonku wuxuu leeyahay shuruudo haddii la waayo shuruudahan mid ka mid ah ma ansaxayo soonka waxayna kala yihiin shuruudaha sida tan. marka hore waa inuu qofku yahay muslim maxaa yeelay qofka gaalka ah ma ka ansaxayo soonka. labo waa inuu yahay qof qaangaar ah una awoodo inuu soomo maxaa yeelay qof saqiir ah oo aan qaangaar ahayn soon ma ka ansaxayo. saddex waa inuu yahay qof aqli leh maxaa yeelay qof waalan oo aan aqligiisa dhameystirnayn soonka kama ansaxayo. afar waa inuusan ahayn qof musaafir ah maxaa yeelay qofka musaafirka waxaa loo baneeyay inuu afuro mar kalena uu soo gudo. shan waa inay gabadha ay daahir tahay dhiigga caadada ay daahir ka tahay iyo midka dhalmadaba maxaa yeelay haddii gabadha ay qabto dhiig soon ma ka ansaxayo. maxaa buriya soonka? soonka waxaa buriya waxyaabo badan oo aan hadda meeshan ku soo koobi karin waxaana ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee soonka bura arrimahan soo socda. kow inuu qofku istiro ama daawo u qaato sanka ama afka. labo galmada iyo qarowga. saddex mataq kas ah oo uu iska keeno. afar sandaarsiga oo lagu dheeraado iyo sigaar cabista. shan in si kas ah wax loo cabo waxna loo cuno. lix inuu yimaado dhiigga dhalmada ama midka xaylka caadada. toddoba in dhiig qof kale lagu shubo. sideed in qofka uu iska dhaqo keliyaha. sagaal inuu waasho qofka. toban qofka inuu diinta uu ka baxo. 11 inuu miir daboolmo qofka. guntii iyo gabagabadii waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay bisha barakaysan ee Ramadaan soomisteeda؟ يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب. faa'iidooyinka caafimaad ee uu soonku leeyahay waxaa ka mid ah koow soonka wuxuu ka hortagaa cudurrada kansarka. soonka wuxuu kordhiyaa awoodda jirka bini'aadamka. soonka wuxuu ilaaliyaa maqaarka jirka waxa uuna ka hortagaa cudurrada ku dhaca maqaarka. afar soonku wuxuu yareeyaa cudurrada xasaasiyadda iyo kuwa ku dhaca saableyda. shan soonku waxa uu ka hortagaa cudurrada macaanka iyo sokorta. lix soonka waxa uu daawo u yahay cudurrada ku dhaca lafaha iyo sidoo kale xanuunada kale ee kala goosyada. toddoba soonku waxa uu yareeyaa dufunta tirada badan ee ku jirta jirka qofka taasi oo dhibaysa caafimaadka jirka.
يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب بشراك مغفرة بغير حساب.